barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay yaad tihiin. cunsuriyadda, midabta koorka, yasmada, quursiga iyo waxyaabaha la midka ah ee dhaxmara dadka bini'aadamka ah waa arrimo ku salaysan jahli iyo aqoon yari haysa qofka ama dadka ku dhaqaaqaya arrinka. waana soo jiri jiray arrinkaasu intii bini'aadamku jiray. waa xaqiiqo jirta ah oo diinkeena suuban iyo caqliga saliimka ahiba sheegaya in dadku aanay ku kala sarreynin wax aan ahayn qiimaha shakhsiyadahoodu leeyihiin iyo waxtarkooda oo ah laba arrin oo qofka ka timaada xiriirna aan la lahayn reerka uu ka soo jeeday iyo dalka uu u dhashay toona. bulshadeena Soomaaliyeed ayaa waxaa aad ugu badan isugu faanka qabiilka iyo kala sarreysiin lagu dhiso qabyaalad oo aan macno weyn ku dhisnayn adduun iyo aakhira toona. Allah oo tilmaamaya in macnaha kala sarreynta uu ku salaysan yahay alle ka cabsi iyo wanaag oo kaliya oo aanu ahayn nasab iyo anaa reer hebel ah ama aniga ka dhashay reer sarreeya ayaa wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومعنى يهي دادو waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig waxaana idinka yeelay shucuub iyo qabiilo si aad isu barataan oo isku aqoonsataan. ruuxaasi ugu sharaf badan alle agtiisa waa kan idinkugu dhowrsashada badan alle agtiisa. allena wax kasta waa og yahay. ceeb maahan in la ishayb warsado ama la isbarto qof walbana kan kale qabiilka uu yahay uu weydiiyo. waana jiri jirtay tan iyo waagii nabigu ummadda dhex joogay. waxaa qaldan in laga xishoodo in la isweydiiyo oo hadhow la iska daba hadlo oo la isxanto hebelkii hadda naga akacay yuu yahay iyo sheekhan hadal macaana talo waa qolama walaalow ninkan hadalkiisa wuu cajabiyay yuu yahay iyo hadallada aashunku adinka ah ee aanan bannaan la ooline habeenkii uun la wadwado ayaa qaldan oo xun. inta la iska daayo aan noqono kuwa si fiican isu barta sidaasna isku jeclaada. dadka ayaa waxay isku khaldaan qabiil iyo qabyaalad oo kala macno duwan. qabiilka waa midka loo nasab sheeganayo qof kasta uu ka soo jeedo una dhashay kuna abtirsado. qabyaaladuse waa in dadka aad ku nacdo ama ku xiriiriso qabiilka uu yahay dartii. qabyaaladu waa inaad reerkaaga dulmiga ku taageerto iyo xumaanta dartoodna dadka u goyso. xataa waxaad arkaysaa dad ka mida dadka waxbartay qaarkood oo aan kala saari karin qabiil iyo qabyaalad oo dhahay aan qabiilka ka tagno aan qabiilka duugno iyo hadallada la midka ah. war qabiil lama duugi karo lagamana tagi karo waayo waxa dadku ka dhasheen ay dadku isku garanayaan oo la isu aqoonsanayo waa qabiilka sida quraanku sheegay. dhibkana ma ahan qabiil waa in asaga wax lagu cunsuriyeeyo oo wax lagu yeso laguna naco ama lagu xiriiriyo dartii markaana waxay isu bedelaysaa qabyaalad. qabyaaladu waa arrin aad u xun oo kala geysay dad ehel iyo xidid isu ah. qabyaaladu male xad iyo meel ay ku hakanayso oo markii aad reerka kore dad ku kala tagtaan oo aad ku nacdo aad kan hoose u soo degayso ayaa lafta iyo jilibka hoose ilaa aad in adeerka ku kala tagtaan. waa sida basasha oo kale mar haddii fiiqid iyo kala saar lagu bilaabo aanan joogsanayn ilaa aad xubinka ugu yar ka gaarto amaba hal cad oo kaliya uu kuu soo haro. lama sheegin
dad meel degan oo qabyaalad dhex gashay oo liibaan adduun iyo aakhiro gaaray inay dumaan oo isnacaan oo kala fogaadaan kadibna isbaabi'iyaan maahane. qabyaaladdu waxay hor joogsataa horumar kasta oo dad meel degani ku tallaabsadan lahaayeen. waxay dadka ka indha xirtaa aqoonta iyo la dhaqanka dadka kale ee isaga aan ku reerka ahayn ama aan ku gobolka ahayn iyo deegaankaba. waxa uuna diidaa wax kasta oo ka duwan wixii uu soo arki jiray qabyaalad aawadeed. nebi moxamed markii uu dowladdii islaamka ka taagayay magaaladii madiino ee uu usoo hijrooday, waxyaabihii uu xoogga saaray ee uu la dagaalamayay waxaa ka mid ahaa wacyigelinta badanna uu ku bixiyey qabyaaladda. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, dacuuhaa fa innahaa muntina. oo macnaheedu yahay ka taga qabyaaladda waa qurun ogow dhagaystow in qabyaaladiistuhu dhib weyn uu ku hayo naftiisa, waayo isaga ayaa ismooday inuu ka fadli badan yahay dadka kale oo dhan. wuxuusan ogeyn inuu jiro qof kale oo isna sidoo kale ka aaminsan oo u arka inuu isna yahay mid liita. qabyaaladiistuhu isaga uunbaa iska dhaadhiciyey mooye qof uu qabiil iyo nasab kaga sarreeyo ama kaga fiican yahay reerka uu ka soo jeedo ma jiro. qof walbaana waxa uu ku qiimaysan yahay waxa uu gooyo asaga iyo qiimaha uu leeyahay. qabyaaladiistihii ugu weynaa ee adduunka soo mara oo dhammaan dadka qabyaaladda iyo qurunkeeda ku howlanina arday u yihiin ayaa ah ibliis. allah ayaa arrinkaa inooga warramay. alle wuxuu yidhi, qaala maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. oo macnaheedu yahay alle wuxuu yidhi, maxaa kaa reebay inaad sujuuddo markaan ku faray? wuxuu yidhi, ibliis anigaa ka khayr badan oo ka fiican. waxaad iga abuurtay dab, asna dhoobo ayaad ka abuurtay. u fiirso sida ibliis u jawaabay markii uu allah weydiiyey waxa uu ugu diiday sujuudda aabbaheen aadam, isagoo weliba ku jawaabay inuu ka wanaagsan yahay kana fadli badan yahay. waa sida anaa kaa laandheer, annagaa ka mudan jagadaas ree hebel, annagaa nambar buuxa ah, iyaguna waa nus ama 0.5. waa qaabka noocaas ah oo kale waxa uu shaydaan ku jawaabay markii uu eebbe weydiiyey sababka uu u sujuudi waaya aabbaheenii aadam. inta badan qabyaaladiistuhu waxa uu isbarbar dhigaa waxyaabo aan la isbarbar dhigin, sida anaa kaa cad, anaa kaa qurxoon, annagaa kaa tima jilcan, iyagu timahoodu waa si kale iyo waxyaabaha la midka ah. sida shaydaankii ibliis ahaaba u yidhi, aniga dab ayaad iga abuurtay, asagana dhoobo. oo sidaas haddii xaalku yahay, waxaa dhici karta in dabkuna yidhaahdo anigaa ka fiican, sababtoo ah waxaan arka waa baabi'in karaa, halku dhoobadu soo boodayso leedahay maya, anigu wax alla wixii daba waan damin karaa, dabku waxba ma gubi karo intaan joogo. meeshaas ayaa dood aan dhammaad lahayn iyo dagaal ka bilaabanaya. midba midka kale uu u sugayo inuu ka fiican yahay iyo waxa kan kale uu dheer yahay inay yihiin wax badan, iyadoo ay awoodaan dadku inay isfahmaan mid kastaana awooddiisa iyo wanaaggiisa loo qiro. yaa ku yidhi adiga reerkaaga oo keliya ayaa wanaaggu ku dhan yahay, inta ka soo hartaana waa daadxoor aan macno ku dhisnayn. waxaad maqlaysaa dad badan oo caynaya ama wax ka sheegaya qabiil dhammaantiis, oo isticmaalaya erayo iyo xukunno qabiilkii iyo dhammaan dadkii ku abtirsanayay wada qabanaya, sida ree hebel lama aamino, ree hebelna waa been badan yihiin, ree hebel waa kuwo na baabi'iyey, qabiil hebelna waa mooryaan dadlays ah, iyo hadallada la midka ah oo simaya dhammaan dadka ku abtirsada qabiilka, xadgudubna ku ah dad wanaagsanoo badan oo ka tirsan qabiilka isaga ah, kuwaasoo ka ballaaran inta yar ee xumo wadayaasha ah, laga yaabo inay ka tirsan yihiin qabiil kasta oo Soomaaliyeed. sugayahanka reer Ingiriis ninka lagu magacaabo William Shakespeare ayaa wuxuu yiraahdaa, xukun dadku ma wada ekeeyo nin aan jaahil ahayn. sidaa darteed waxaad ogaataa dhagaystow in qofka jaahilka ah oo kaliya uu reer dhan oo muslim ah oo Soomaaliyeed uu hal sifo
iyo hal timaa wada siinayo ama dhammaantood uu weerarayo isagoo aan u fiirsanin dembiga ka galay iyo kan aan gelin. qabyaaladda laguma dhasho, qofna kama keeno caloosha hooyadii, ee markii uu dhasho kadib ayaa lagu tallaalaa nacaybka dadka kale iyo reerahooda, oo sida uu uga maqlay waalidkii cayda iyo nacaybka reerkaas ayuu iska nacayaa asagoo aan hal qof ka arkin kalana dhaqmin reerka isaga ah. dhibku wuxuu ka bilowdaa guryaheenna iyo halka lagu barbaarinayo da'yarta. ha laga joogsado qabyaaladda iyo ku talaalidda lagu talaalaya carruurta quluubtooda ay nadiifka ka tahay wasaqda qabyaaladda iyo madowgeeda. waxaadna ogaataa dhagaystow in sida xumaha iyo nacaybka iyo qabyaaladda loogu beeray qofka si la mid ah in wanaagga iyo jacaylka isdhexgalka loogu beeri karo. kuwan dambe ee aan soo sheegnay wanaagga iyo jacaylka ahaa ayaana qalbiga qofka uga dhow xumaha iyo nacaybka. ogaada gobollada kala duwan ee aan ka soo jeedno iyo meelaha aan ka kala nimid waa wax loo baahan yahay in laga faa'iidaysto, midba midka kalena uu barto waxa uga duwan yahay qofka walaalkii ah ee gobol kale ka yimid iyo sida looga dhaqmo meesha uu ka soo jeedo. annagoon wax badan kala fogeyn oo Soomaaliya oo dhanina ay tahay hal qoys oo meel dheer aan kala jirin oo isku dhaqan iyo diin ah, ayaa haddana ay wanaagsan tahay inta yareen ku kala duwannahay inaan kala kororsanno oo aan kala faa'iidaysano. cidina cid aysan si gaara u yasin, cidina ay si gaara isu siin saxnaan buuxda iyo fiicnaan dhammaystiran, sababtoo ah waana wada deeqaan, waana naga wada ballaaran yihiin. isku day inaad ogaato akhlaaqdayda ka hor intaadan baranin qabiilkayga. isku day inaad barato fikirkayga ka hor intaadan ogaanin ururdiimeedka aan ka tirsanahay. isku day inaad ogaato waxqabadkayga ka hor intaadan ogaan gobolka aan ka soo jeedo. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday. isku day inaad dhaqan geliso siina faafi.